Cabdirasaaq wuxuu na weydiinayaa miraayadaha anti blue light ka warbixin naga sii. Anti macnaheedu waxa waa laga hortagayo blue light ka oo miraayadaha loo adeegsanayo. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo 5 arrimood oo muhiim ah oo u baahan tahay inaad ku ogaato muxuu yahay blue light. Arrinta koowaad waxay tahay blue light kan anaga dhan ugu hareeraysan. Meel walba iftiin ka jirto blue light oo jira. Tusaale ahaan leerka hadda tan guriga kale uu leeyahay blue light ka, banaanka cadceed uu leeyahay. Sidoo kale meesha ugu badan oo laga helo waxa waaye iftiinka cadceedda. Arrintaas waa arrinta koowaad oo u baahan tahay inaad ku ogaatid talo muxuu yahay blue light kan. Arrinta labaad oo u baahan tahay inaad ku ogaatid waxay tahay blue light kan oo ugu hareeraysan caafimaadka door muhiim ah oo ka ciyaaraa. oo caafimaadku u wanaagsan yahay. taasoo ah inuu nasiinayo nashaad, inuu nasiinayo firfircooniya waliba maalintii. waa sababta loo leeyahay qofka markuu subax soo kaco kale inuu ilaas isku dhigo. ayna kamid tahay nimcooyinka Ilaahayna siiyay si maalintii nashaad u noqono oo shaqooyinkeena maalinlaha u qabsano. Arrinta saddexaadna waxay tahay ilaaskaas oo taleefanka ka soo baxay maadaama aan dhahnay iftiin walba uu ku jiraa. iftiinka uu ka soo baxayo mobilka oo kale markii aan habeenka fiirinayn oo kale in uu indhaal leeyahay oo kale habeenkii inuu indhaha ku daalinayo. laakiin in uu dhaawacyo indhaha soo gaarsiinayo in kale wali baaritaan ayaa ku socoto oo weli lama xaqiijin midaas. laakiin arrinta la xaqiijiyay waxay tahay inuu daal indhaha u keenayo waliba xilliga habeenkii maadaama mobilka qofka uu fiirinayo oo kale shaashadaha oo kale iftiinkaas ka soo baxa. arrinta afraadna waxay tahay isticmaalka shaashadaha xilliga habeenkii oo kale iftiinkaas buluuga ka soo baxayo maadaama qodobka hore aan soo sheegno ah inuu nasiinayo nashaad iyo firfircooni oo maalinta ah. habeenkiina haddii oo iftiinkaas aad fiirisid waxay keenaysaa inuu maskaxdeena u qaato inay maalin tahay, kadibna uu systemki kaa qaldamo oo hurdo la-aan meeshaas ay ka dhacdo. taasoo ku keeni karta in hurdo la-aan aad kala kulantid isticmaalka shaashadaha. marka xilliga habeenkii hormonisku jirkeena soo daawo melatonin la dhaho oo hurdada noo keeni lahaa ayay keenaya marka iftiinkaas indhaha ku dhacaan in mataqaanaa aad maalin u malaysid oo sidaa hurdo la-aan ay kugu dhacdo. marka baaritaanaas markay soo dhammaadeen telefoonada sida androidka iyo iphone-ka oo dhawaan soo baxo kale dhammaantood wuxuu leeyahay option blue light-ka. marka habeenkii markii la gaaro waxaad samaysaa shido si mataqaanaa iftiinkaas uu kaaga yara difaaco oo mataqaanaa hurdo dhaqsi kaaga imaato. marka anti blue light-ka oo saaxiibkeena soo weydiiyay waa midaas oo weliba aad waxay saameyn u leedahay habeenkii. ayadoo muraayadaha lagu sameeyayna waa jirtaa oo hadda tan dhawaan soo baxay magacyo kala duwan leeyahay sida blue control, blue filter, computer glasses. magacyadu waxba ku wareerin in hadda xataa midkaan wato uu yahay nooca blue control ka ah oo aad kaaga difaacayo iftiinkaas waliba aad wuxuu saameyn u leeyahay xilliga habeenkii. qodobka ugu dambeeya qodobka shanaadna wuxuu yahay maadaama aan sheegnay iftiinkaas inuu qofka nashaad firfircooni uu ka dhigayo waxay keenaysaa haddii habeenkii aad isticmaashid waliba meelaha aad ugu badan yihiin waxa waaye shaashadaha. sidoo kale maadaama ayna maalin ahayn oo kale oo cadceed ay jirin, sidoo kale xitaa iftiinka oo nalka uu leeyahay laakiin inta badan waxa aad u fiirno waxa waaye shaashadaha. artaan ayaa wuxuu leeyahay waxay keenayaan in uu gaajo dhaqsi ay ku qabato. sidoo kale waxyaabo uu keenaya waxay tahay heerka sokortaadana wuxuu ku leeyahay saameyn aan fiicnayn uu qasaya. halkaas ayaan kusoo gabaynaa 5 arrimood oo muhiimka inaad ka ogaatid blue light-ka muxuu yahay. sidoo kale muraayadaha shaashadaha kale loo isticmaalo blue filter-kana linkiga ayaan soo dhigay website aniga leeyahay. haddii aad xiiseynaysid noocyada kala duwan ee u kala baxaan iyo tayadooda inaad bandhig ahaan aan usoo bandhigana like-ta saara. waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafiyo.